hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaa maanta shir degdeg ah isugu yeeray xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya isla markaana laga soo doortay deegaanada maamulkaasi. Laftagareen ayaa shirkan ku sheegay mid wada tashi ah oo looga hadlayo xaaladda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha soo kordhay ee khilaafka doorashada iyo khataraha amni ee waddanka ka jira. xildhibaano iyo senatarro ka tirsan baarlamaanka dalka isla markaana ka jawaabaya baaqa Laftagareen ayaa galabta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. xildhibaanada maanta ku laabtay koonfur galbeed qaarkood waxay sidoo kale ka tirsan yihiin golaha wasiirada ee xukuumadda Rooble. maamulka koonfur galbeed ayaa xalay sheegay inay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kadib markii ay ra'iisul wasaaraha ku eedeeyeen inuu qaaday tallaabooyin baalmarsan heshiiska doorashada Soomaaliya iyo inuu faragelin ku hayo shaqada guddiga doorashada ee heer federaal. wakiilada beesha caalamka ayaa maanta dhankooda ka hadlay xaaladda jahwareerka ah ee doorashada Soomaaliya iyo khilaafkii ugu dambeeyey ee dhinaca doorashada. qoraal ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in tallaabo wanaagsan ay tahay sida dardarka leh oo ay ku socoto doorashada baarlamaanka Soomaaliya. maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland oo keliya ayaan weli soo dhammaystirin geedi socodka doorashada golaha shacabka. waxaan ku boorinaynaa inay sidaas sameeyaan iyadoo aan jirin dib u dhac isla markaana mudnaanta siiyaan wada hadalka iyo wada tashiga laga maarmaanka u ah soo gabagabaynta qabanqaabada doorashada gaar ahaan arrimaha Jubbaland si loo hubiyo in beelaha ay khusayso ay matalaad ku yeeshaan baarlamaanka soo socda ayaa lagu yidhi qoraalka beesha caalamka. sidoo kale qoraalka beesha caalamka ayaa lagu yidhi waxaan ku bogaadinaynaa dhammaan guddiyada hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed ee CITES sida ay dukumiintiyada ugu gudbiyeen guddiga hirgelinta doorashada heer federaal ee FID iyadoo loo madlan yahay dhaarinta xubnaha cusub ee la soo doortay oo ay dhaarin doonaan hay-adaha awoodda u leh marka la gaaro 14 bisha Abriil. waxaan ku boorinaynaa in hore loogu socdo u diyaargarowga dhaarinta 14 Abriil xataa iyadoo ay socoto howsha xallinta arrimaha kale ee taagan iyo dhammaystirka kuraasta ku harsan maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland ayaa lagu yidhi qoraalka. war-saxaafadeedka beesha caalamka ayaa ku talinaya in laga gudbo doodda ka taagan kuraasta afarta ah ee dib loo celiyey lana gudagalo doorashada waxaana kuraastaasi qayb ka ah kursiga oo ku fadhiyo Fahad Yaasin taasoo quus ku sii ridaysa Fahad Farmaajo iyo Laftagareen oo qorsheynaya in Fahad Yaasin laga dhigo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ee dalka. madaxda Soomaalida ayaa loogu baaqay in heshiis iyo wadar oggol looga gudbo muranka taagan iyo in si degdeg ah loo qabto doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadibna la doorto madaxweynaha dalkan hogaamin doona 4 sano ee soo socoto iyadoo mudnaanta la siinayo dhibaatooyinka culus ee waddanka ka jira sida ay ku taliyeen wakiilada beesha caalamka. dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa la sheegay inuu isbeddel ku sameeyey taliyaasha amniga xafiiska ra'iisul wasaaraha isagoo kaashanaya saraakiil kuwa ammaanka ah. dhowr sarkaal oo ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa isbeddel lagu sameeyey sababo la xiriira kalsooni darro ka dhalatay digniin amni oo ay dhowaan soo saartay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo khilaafka siyaasadeed ee waddanka hareeyey. Soomaaliya ayaa ku jirto xaalad adag oo dhinaca siyaasadda, ammaanka, dhaqaalaha iyo bini'aadanimada ah mana muuqato dhabbo si degdeg ah xal loogu heli karo sida waddanka ka jira. khilaafka sii kordhaya ee doorashada Soomaaliya ayaa laga cabsi qabaa inuu dalka geliyo xaalad adag xilli bulshada Soomaaliyeed ay guud ahaanba wajahayaan dhibaatooyin culus oo ka dhashay abaaraha waddanka ka jira.